magaalada Muqdisho iyo dalka oo dhan waxa ka socda dib u dhis waxaana soo kordhaya dhismooyin casri ah laakiin dhibaatada ugu weyn ee hadda ka jirta koonfurta Soomaaliya waa wadooyinkii dalka oo burburay gaar ahaan wadooyinka Muqdisho dibadda uga baxa ee aada gobolada dalka sanado badan kadib tan iyo burburkii dawladda Soomaaliya waxa markii ugu horeysay dhismo iyo dayactir lagu bilaabay wadooyinka isku xira Muqdisho iyo Afgooye Muqdisho iyo Balcad waxaana sida qorshuhu yahay la doonayaa in la gaarsiiyo ilaa magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle marka aad dul istaagto hawsha baaxadda leh ee lagu hayo dhismaha wadada Afgooye oo aan booqday gawaarida noocyadeeda kala duwan ee shaqeynaya shaqaalaha isugu jira Soomaali iyo waliba ajnabi ee subax walba u kala haya ayaa waxa shakil aan ku soo baxaysa in mar kale ay soo bidhaamayso rajadii beeraleyda labada shabeelle oo baahi weyn u qaba in ay suuq u helaan dalagyada kala duwan ee ay beertaan tiyo uu soo hagaagayo isu socodka dadweynaha mashruucan oo ay maalgelinayso sanduuqa horumarinta ee dawladda Qatar ayaa waxa ku baxaysa lacag ku dhow 200 milyan oo doolarka Mareykanka ujeedada mashruuca iyo dhismaha wadooyinkan ayaa waxa faahfaahinaya Abubakar Bashiir Maxamed oo isku xiraha horumarinta mashaariicda Qatar iyo Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxay ka shaqeynaysay 3 sano iyo barkii la soo dhaafay in ay bilowdo mashaariic saameyn dhaqaale iyo mid bulsho leh oo bedeli kara narrative-ka Soomaaliya laga yaqiinay oo ahaa in meel humanitarian bas ku kooban ah marka mashruucan oo ah mashruuc 122 kilomitir ka kooban waxa waaye mashruuc wado kii ugu weynaa Soomaaliya oo laga fuliyo 60 sano Soomaaliya dawladda jirtay markii loo fiirsho dhererkiisa iyo markii loo fiirsho baaxadiisa iyo markii loo fiirsho muxuu ahaa ii sheeg goob dadka uu isku xiraayo mashruucan waxaa maalgelinaysay dawladda Qatar sanduuqa fanka ay leedahay ee sanduuqa horumarinta Qatar ayaa lacagta bixinayay dawladda Qatar mashaariic ay Soomaaliya ugu deeqday ayuu ka mid yahay wuxuu isku xiraa saddex gobol oo waaweyn oo Soomaaliya gobolka Banaadir oo Soomaaliya meesha dadka ugu badan ay ku nool yihiin gobolka Shabeellada Dhexe oo ah asna midka gobolada ugu dadka badan iyo gobolka Shabeellada Hoose oo asna ah gobolka ugu dadka badan uguna degmooyinka badan Soomaaliya uguna beeraha badan sida marka mashruucan waxa loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu ku bixiyay amar in aan la qaybinin mashaariicda noocan oo kala ah dhaqan waxa abuurmay ah in mashaariicda infrastructure-ka ah la federaaleeyo ama la qaybiyo si saameyn dhaqaale oo iyo mid bulsho oo buuxdo meeshii mashruuc laga sameeyo loogu sameeyo ayaa waxa loogu doortay inuu saddexdaas gobol isku xiro laakiin saddexdaas gobol isku xiritaanka wuxuu u noqon doonaa fure dalka oo dhan inuu isku xiro maxay yeelay ogtahay Muqdisho gobolada dalka waxa ku xiran laba wado oo waaweyn labadii wado oo waaweynaa bilowgoodii waaye mid waxaan ka gaari doonaa 90 kilomitir mid waxaan ka gaari doonaa 22 mid 100 kilomitir wax ku dhawaay midna 22 kilomitir wax ku dhawaay midaan aan maanta wadno jidkan la dhisayo la nooc ma aha kuweenii hore ee naga burburay bal hadaba eeg baaxadda ay wadadani leedahay 1 2 3 4 5 6 7 8 halkan waa marshabiyeedigi 1 2 3 4 5 6 7 8 guud ahaan waxay isku tahay 16 mitir laakiin labada dhinac ee wadada ayaa sidoo kale waxa loo sameeyay dhul baaxad leh oo ganacsiga xataa way ka fogtahay taasoo saamaxaysa gawaaridu inay ku socdaan si xawli ah wadada inta la dhisay ilaa iminka way si camirmaysaa oo waxa laga dhisayaa dhismooyin ganacsi iyo masaajid aad u qurux badan inkastoo aan wali amniga dartii loo ogolaan in dadkaasi ay ku shaqeystaan Mustafa waxa uu ka mid yahay injineerada Soomaaliyeed ee wax ka dhisaya hagaya dhismaha wadada waxa uu iiga sheekeeyay wadada iyo heerka ay hadda taagan tahay waa maasantahay magacaygu waa Mustafa Ahmed si guud haddaan kaaga sheego shaqada halkan wadno waxaa bilownay last year-kii mashruuca gabi ahaan waa laba qaybood ka kooban yahay Muqdisho Afgooye Muqdisho Balcad hadda section-kan hadda aan wadno aan ka shaqeynaa waxa weeye waa Muqdisho Afgooye weeyaan wadadu waa wado standard ah wado runtii haddii mashruucan uu inoo dhammaado insha Allah aad u anfici doonto waddankeena iyo waliba isku xidhka Muqdisho Afgooye labadan magaalo section-kan Muqdisho Afgooye wuxuu ka kooban yahay distance ahaan waa 22.5 kilometer hadda waxaan soo wadnay 2.9 almost 3 kilometer
ayaan saarnay laamigii hadda alxamdulillah shaqada si fiican ay u socotaa waad u jeedaan baan waleenayaa sidoo kale wadada standard quality leh waxyaabaha socday imka waxaa ka mid ah saa u socotaa in la saarayo asfaltigii sidoo kale waxaa la wadaa oo dhignay drainage-kii meelii biyo shubka ahaa alxamdulillah so far shaqada si fiican u socotaa Wilford Jack oo ah injineer farsamo yaqaan ayaa ii sheegay in sidii loogu talagalay uu ugu socdo qorshaha dhismaha wadada Afgooye laakiin arrimaha la xiriira sugidda amniga shaqaalaha Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ee ka shaqeynaya qalabka la adeegsanayo in xoogaa yar dib u dhac uu keenay xilligii dhamaystirka wajiga koowaad ee mashruuca oo ah wadada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho waxa uu sheegay in hadda ay dhamaystireen aasaaskii wadada ayna dhigayaan laamigii ama daamurkii koowaad kadibna uu xigi doono mid kale waxa Wilford uu kalsooni ka muujiyay tayada dhismaha wadada la dhisayo isagoo uu sheegay inay bixinayaan damaanad qaad buuxa oo ah in wadadaasi aan wax dayactir ah u baahan doonin muddo 20 sano ah. The design life, what we call the design life for this road, is actually 15 to 20 years, minimum of 15 to 20 years. halkan xeradeena ayaan ku haysanaa shaybaar hubiya tayada dhammaan agabka loo isticmaalayo wadada ayuu yiri Wilford. We have a laboratory in our compound back in our camp, and we have a daily, the consultants people together with the contractors are daily monitoring by taking samples from the field and testing in the laboratory. And we have international standards, AASHTO, that's the American standards, which we are following in our construction. halkan aan taaganahay waa wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo Afgooye oo uu ka socdo dhismaha wadada wadadan ayaa waxa ka shaqeynaya dhismihiisa injineerro isugu jira Soomaali iyo sidoo kale ajnabi injineeradan ayaa waxay had iyo jeer ay isku dayayaan in wadadan ay ka dhigaan mid casri ah oo la jaanqaada wadooyinka caalamiga ah waxay leedahay laba fidqo waxaanay ka shaqeynayaan maalin walba intii ay karaan wadadan dhinacyada waa laga xiray sababta looga xirayna waxay tahay arrimo amni awgeed maalin walba ayay dadku halkan mari jireen laakiin hadda ma maraan wadooyin kale oo qardajeexa ayaa dadku ay marayaan oo ay ku tagaan Afgooye culays bay ku tahay laakiin waxa ka muhiimsan dhismaha wadada sida uu qabo Abubakar Sheekh mashruuca saameyn dhaqaale oo weyn mudanadoor ayaa la filayaa dadka waa ku dhirfaadsan yihiin dad badan ayaa nooga dhintay challenge badan ayaan ku marnay laakiin wax kasta waxa ka qaalisan waxa uu saameyn lahaan doono oo ah in beertii ruuxi soo saartay beertiisa xamar uu subaxii u soo shaqatay u keensan karo wixiisa u geedan karo gurigiisana si dhaqso ugu laaban karo bariiska iyo galeyda iyo maxaa la dhahaa yaanyada xamar laga cuno beerihii laga soo guri lahaa waa kuwa meesha yaalaan marka beerahaas iyo muxuu ahaa inay isku xirmaan beledkii ugu weynaa marka ugu dambeysna uu dalka oo dhan isku xirma ayaan rajaynaynaa waxaan aad uga mahadcelinaynaa dawladda Qatar oo muxuu ahaa hawshan si xoog leh u qabatay mashaariic istiraatiiji ah Soomaaliya kala shaqeynaysa fariisin weyn ayay sameysteen shirkadaha Turkiga ee dhisaya wadada iyo shirkadaha kale ee la talinaya ee Soomaalida waxaana halkaasi aad ku arkaysaa qalabyo kala duwan oo shaqo adag ku jira bacaadkii laamigii jaayigii ayaa si baaxad leh waxay ugu fidsan yihiin dhul aad u ballaaran waxa sidoo kale iyana la bilaabay dhismaha wadada Balcad iyo Muqdisho oo ah wajiga labaad ee mashruuca haddii si nabada uu ku dhamaado dhismaha wadada Afgooye waxa dhiirigelin weyn ay u noqon doontaa beeraleyda Shabeellaha Hoose haddii amnigu uu sii hagaagana dad badan oo liido iyo maqaayadaha magaalada Muqdisho dhexdeeda hadda casriye u doonta ayaa isku arki doona Jeerey Jambaluul Sabiid iyo Caanoole Maxamed Ibraahim Macalimo